xarunta macadka xalinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa ayaa waxay martigelisay kulan isxog waraysiya oo u dhaxeeya goobjoogayaasha caalamiga ah ee kormeeri doona doorashada Soomaaliland ku soo fool kale iyo hay'adaha maxalliga ah ee Soomaaliland ee iyaguna ku hawlan kormeerka doorashada. Waxaa sidoo kale kulankaasi ka qayb galay xubno ka socday bulshada rayidka ugu horeyna Maxamed Barawani oo ah agaasimaha dalada Sonsaf ee ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn ayaa ka warbixiyay sida ay u maamulayaan goobjoogayaasha maxalliga ah waxaana uu sheegay in sanadkan ay hayaan in ka badan 600 oo kormeerayaal maxalli ah kuwaas oo ku shaqeyn doona hab tiknoolajiyada ku salaysan. Is more sophisticated than before because of we used the online system reporting in observers in 2012 si ay u soo diraan xogaha la xiriira habsami u socodka goobaha doorashada xogtaasi oo qeexaysa goorta la furay iyo goorta la xidhay iyo sida codbixintu ay u dhacday goob walba. Everybody is reporting back up to 5 o'clock. Teams come to the polling station and the materials up to the counting and closing the polling station. Susan Mwambe, Michael Wallace iyo Ahmed Farag oo saddexduba ka tirsan goobjoogayaasha caalamiga ah ee doorashooyinka Soomaaliland kormeeri doona ayaa dhankooda waxay soo bandhigeen sida hawsha ay u qaban doonaan. What we do is we assess based on what exists in that country. So it's not a comparison at all. So we also don't interfere with the process. Susan Mwambe waxay tiri waxaanu qaban doonaa ayaa waxay tahay kaliya inaanu eegno sida ay wax u dhacayaan wax faragelina kuma samayn karno hanaanka shaqada balse kaliya waanu kormeeri doonaa sidoo kale qoraal ayaanu ka sameynaynaa sida ay wax u dhaceen waxaana intaasi raaco oo kaliya in talooyin aanu siino cid ay khusayso. But what we do is that we observe, we take note and we try to advise. Ahmed Farag oo isna ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah waxa uu sheegay in kormeerayaashu aanay meel kaliya ku koobnaan doonin balse ay mari doonaan inta badan goobaha codbixintu ay ka socoto. Our observers are more mobile, so basically they move from one polling station to another. Intaasi kadibna waxaanu soo saari doonaa ayaa uu yiri warbixin buuxda oo ku saabsan doorashada Soomaaliland laga soo bilaabo hanaankii diiwaangelinta codbixiyayaasha wacyigelinta ololaha doorashada iyo ugu dambeyn ku dhawaaqista natiijada doorashada. Voter registration, voter education, campaigning, the election process and election dispute resolution after. Intaasi oo dhan ayaanu warbixin buuxda ka samayn doonaa ayaa uu yiri kormeera Ahmed Farag. We will have a more comprehensive report based on our observation on the ground. Michael Wallace ayaa sidoo kale waxa uu sharaxay macnaha ugu weyn ee korjoogayaasha caalamka ay ugu fadhido kormeerka ay ku sameynayaan doorashada Soomaaliland. So really the process of observation is very much one of trying to understand the system, the function, the way hanaanka kormeeranimadu macna ahaan waxa uu yahay in la hubiyo sida ay shaqada u socoto iyo sida hawsha loo gudanayo annagoo adeegsanayna khibrad aanu ka dhaxalnay meelo kala duwan intaasi kadibna waxaanu bixin karnaa tilmaamo wax hagaajinaya. What might be appropriate and the suggestions come from that position. kormeerayaasha caalamiga ah ee kulankaasi ka qayb galay ayaa su'aalo laga weydiiyay cid ay matalayaan iyo dalalka ay ka kooban yihiin waxaana arintaasi ka jawaabay Michael Wallace oo sheegay in tiro ahaan ay yihiin 60 xubnood oo kormeerayaal caalami ah balse ay matalayaan 28 waddan oo dunida ah. 27 or 28 different countries represented amongst the 60 people. waxaana intaas uu ku daray inay wakiilo u yihiin midowga Yurub iyo Mareykanka oo qayb weyn ka ah shaqadani isla markaasina kalsooni ku qaba hawsha ay qabanayaan iyadoo dawladda Ingiriiskuna ay bixisay kharashka ku baxaya kormeerayaashani caalamiga ah. UK funded mission but it's an international mission and we're also in very close contact with the EU, the US. We're feeding into the discussion internationally about what Somaliland's electoral processes look like, how they work, how they function, what's good, what's bad, what needs improving, what's already strong. Michael Wallace sidoo kale waxa uu sheegay in doorashada Somaliland ay kasbatay isla markaasina ay soo jiidatay wufuud tiro badan oo caalami ah kuwaas oo danaynaya inay wax ka ogaadaan doorashada Somaliland ka dhacaysa taas oo ku tilmaamay inay sharaf weyn u tahay Somaliland. This election will have the most international delegations that has ever been in Somaliland. And I think that's a good thing for Somaliland because it means there is more. ugu dambeynna Dr. Aadan Yuusuf Abubakar oo ka tirsan hay'adda Rift Valley Forum ayaa telefishinka Home Cable u sheegay nuxurka guud ee shirkani kormeerayaasha caalamka lagu casuumay. Ujeedada shirkan waxa weeye waxa dadkan lagu casuumay inay ka soo qayb galaan warbixintan ay bixinayeen qoladan goobjoogayaasha caalamiga iyo isla markaana qolada goobjoogayaasha wadaniga ee la yiraahdo domestiga ayaa iyaguna ka soo qayb galay
si iyaguna warbixin ay u bixiyaan hawsha qabanayaan iyo labada kooxoodba dhinacay ka wada shaqaynayaan intaasay warbixintu ahayd. Cabdishakuur Dayib Maxamed, Hon Cable TV, Hargeysa.